السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا وحان ربا inaan idila wadaago qiso yar oo dhex martay nin ahaa dhakhtarka wadnaha iyo nin kale oo ahaa makaaniga baabuurta sameeya. qisadan runtii markaan akhriyay waxaan ka ogaaday qiimaha ay kala leeyihiin in aad material ka shaqayso sida computer, nalal, makaanig, waxyaalaha materialka caadiga inaad ka shaqayso iyo inaad ka shaqayso qofka bini'aadanka ah. dhakhtarkan wadnaha tusaale ahaan waxaan ugu soo qaadanayna ma aha keliya halka noocee looga shaqeeyo qofka bini'aadanka, taas ma aha. waxaa soo gelaya waxaa weeye hooyada caruurta korinaysa keligeed, waxaa soo gelaya aabbaha caruurta korinaya keligiis, waxaa soo gelaya waalidka isla korinaya ilmaha, waxaa soo gelaya dhalinyarada wax baranaysa, waxaa soo gelaya dhakhaatiirta, waxaa soo gelaya macallimiinta, cid walbo oo ay shaqadeedu tahay in ay qof bini'aadan ah ka shaqayso ama ka shaqaysiiso ama cultivation waxa la yirahdo ku samayso, cultivate garayso qofka, soo saarta ama jir ahaan ha u daaweyso ama maskax ahaan qofka ha u daaweyso, ayay qisadan runtii taabanaysaa. maalin maalmaha ka mid a ayaa waxaa dhacday dhakhtarka wadnaha heart surgeon-kii ayaa waxaa ka halaabay gaari uu aad u jeclaa oo isaga u lahaa. gaarigii ayuu qaaday, wuxuu geeyey mechanic shopka, dukaanka makaaniga uu geeyey. markuu geeyey dukaankii, ninkii makaaniga ee dukaanka joogay ayaa ku yiri shaqada aad bay igu badan tahay, orod oo soo laabo berito. dhakhtarkii wadnaha wuu iska soo tegey, wuxuu yimid gurigiisa. maalintii labaad ayuu ku laabtay. makaanigii weli gaarigii ma dhammayn oo shaqadii baa weli aad ugu badan. kadibna wuxuu ku yiri niyow baabuurkaaga weli ma dhammaynin, laakiin berito ii soo laabo. dhakhtarkii wuu sidii oo kale u sameeyey, wuu soo laabtay maalinkii saddexaad. haddaba markuu soo laabtay isagoo yaro careysan wuxuu is yiri cilada gaariga haysato wax weyn ma aha, haddana saa ay tahay ninka waqti badan buu qaadanaya. su-aal buu weydiiyey, wuxuu yiri dhegayso, maxaa dhacay intanoo maalmood aad ii soo celcelinaysaa, maxay tahay sababta? makaaniga sababta uu u soo celcelinayay dhakhtarkan gadaal baan qisada ka ogaan doonaa, ayaa waxay ahayd ma ahayn inuu waqti u waayey, laakiin wuxuu rabay horta inuu tuso shaqada isaga haayo makaanig ahaan in ay tahay shaqo culus oo adag oo waqti badan u baahan, sida tan dhakhtarka wadnaha uu qabto oo kale. su-aashu uu weydiiyey ninka makaaniga dhakhtarka wadnaha uu weydiiyaa waxay ahayd, wuxuu yiri niyahow adiga waxaa ka shaqeysa waxaa weeye waa qofka bini'aadanka matoorkiisa, wadnaha isagoo la jeedo. anigana waxaan ka shaqeeya waxaa weeye gawaarida matoorkooda. maadaama aan labadeennaba aan labadaas fiil ku kala jirno, siday ku dhici kartaa in adiga aad 10 mar ka badan lacagta lagu siiyo ay ka badan tahay teyda? macnaha you make 10 times more than I make. inta aniga aan sameeyo mushaar ahaan aan u qaato 10 mar ka badan ayaad samaysaa. marka adiguna matoorka bini'aadankaa samaysaa, aniguna matoorka gawaaridan sameeyaa. miyana kula ekeen xaq darro? shaqada aan hayo miyaad u jeedin? soo shaqo adag ma aha, soo shaqo rafaadsan ma aha, soo shaqo lagu maaragtay. makaanigii su-aashaas weydiiyey. dhakhtarkii wuu yara fekeray, wuxuu raadiyey jawaab ku habboon. wuxuu yiri waa runtaa buu yiri, matoor baa adiga ka shaqaysaa, aniguna matoor baan ka shaqeeyaa sida adiga aa u dhigtay. laakiin wuxuu yiri mid sameey, isku day buu yiri matoorka gaariga in aad matoorka beddesho ama hagaajiso gaariga oo ordaya oo waddada saaran, highwayga gaariga oo ku socda. isku day in aad gaariga matoorkiisa ka beddesho ama cilad ka hagaajiso. isagoo ula jeeda dhakhtarka wadnaha markuu hagaajinayo ama qalayo qofka bini'aadanka wadnihiisa, qofkii ma dhiman, qofkii oo nool oo jooga ayaa wadnihiisii laga shaqaynaya. saasuu ula jeedaa marka uu ku leeyahay isagoo ordaya gaariga bedel. ninkii makaaniga ah wuu yaabay, wuxuu yiri there is no way anaa ku dhimanayo yiri haddaan isku dayo gaari ordaya inaan mataqaana aan wax ka qabto. marka saa darteed waxay ku tusaysaa shaqo walbo oo adduunka la hayo noocay doonta ahaato. ha ku yidhaha cirkaan ranjiyayaa, badda ayaan wax ka qabtaa, waxaa weye guryahan dhisaa, noocaasaan qabtaa. shaqooyinkaasoo dhan waxa isku soo fooqsanaya waxaa weeye dadka ka shaqeeya dadka bini'aadanka, ama dhakhtar ahaan ha uga shaqeeyaan
ama maskax ahaan ha uga shaqeeyaan ama diin ahaan qofkii ha dhisaan ama caqli ahaan ha dhisaan ama ha koriyaan ama macallin ha u ahaado bara ha ahaado qofka ay shaqadiisu tahay qof kale oo bini aadan ah wuu ka qiimo badan yahay shaqada uu hayo shaqooyinka kale ee materialka ah ee aan hayno aad buu uga qiimo badan saa darteed ayaan waxaan leeyahay dhammaantiin waa mahadsantiin